kulanti wacan daawadayaal halkan waa midnimo media fadlan subscribe hadda channelka cusub tahay gambaralka taalo si aad noola saaxiibto barnaamijka maanta aan soo bandhigaynaa wuxuu yahay barnaamij la yiraahdo ama laga magacbaxay soo nooleynta mahmaahyada iyo dhaqanka Soomaaliya halkan waxaan kusoo gudbin doonaa mahmaahyada aan rabo inaan idiin faa'iideeyo oo aad ka wada faa'iidaystaan marka koowaad waxaan mahmaahyada weydiin doonaa dhalinyarada midnimo media ama hawlwadeenada midnimo media ay goosba studio barnaamijka haddaan hafeefto waxay igu kalifay maalin dhowda inaan saaxiib nahay oo dhalinyarada reer muqdisho gobolka banaadir ayaa wax dhacday nin buu ay saaxiib yihiin buu abaal badan buu galay ninkii uu abaalka u galay ee uu isku haleynayay ee islaamka wax fiican baad u qabatay ayaa wax kaga soo baxay wuxuu filayay waxaan ahayn wax uu filayay waxaan ahayn baa kaga soo baxay ninka markaa wuxuu jeclaystay inuu dareenkiisa ku cabiro hab suugaaneed ama mahmaha ama gabaya ama suugaana oo heesa inuu ku cabiro wax allaali wax diyaarsanaa ma jirto dhaqanka Soomaaliga wax ku yaqaanaa ninkaas ma jirto saaxiibka ka salaamaya ninka weyn wuxuu ku dhinay waxaan ka rabaa hawshaasaan rabaa inaad igu cabirto maanso ama gabay ama mahmaha inaad igu cabirtaan rabaa sidaa darteed ninkii tix aan leeyahay waan sameynay gabay hore uu abwaan hore lahaa oo ninuu abaal u galay salaan carabi abwaan la yiraahdo oo ninuu abaal u galay oo adeer u yahay oo hawl badan ka furtay oo abaal ku lahaa ayaa wuxuu u tagay magaalada Nairobi ninkii odaygii abwaanka ahaa ma soo dhaweynin balse dadkii ku dareemay gabaygaas uu maalinta u tiriyay abwaankaasi ninkii uu adeerka u haayay abaalka dhaca ku sameeyay tudur kamid ah saaxiibka u sheegay waxaan u qoray waxaan ku ri ninkaas waxa leedahay haddii aad fariin ugu dirayso iyo haddii aad Facebook ugu dhigayso iyo haddii aad boogiisa gaarka ugu qorayso waxba yaano xeer ka imarin xoolana ay siinay xaasheenida ka xistiyay xumihi waya marka waxaan leeyahay dhalinyarada mahmaahyuhu waxa weeye qaybta ugu muhiimsan ee afka Soomaaliga ee dareenka lagu cabiro garta lagu garo hawlaha lagu soo jeediyo khudbadaha lagu jeediyo haddii aan mahmaahay Soomaaliga waxba ka aqoonin waa laga gargalayaa waa laga afmiisaan sanaalaya waa laga bilaabo badanaya soo dhawaada waxaan ku bilaabaynaa mahmaahda kooban mahmaah walba waxaan sheegi doonaa macnaheeda iyo xilliga la adeegsado marka waxaan ka bilaabayaa saaxiibada waxaan leeyahay marka kooban mahmaahda aan sheego macnaheeda inaad isku daydaan waayo wax ka mid yihiin dadka la rabo inaad faa'iidaystaan dadkana weli baan u sii faa'iideyno inagu si guud ahaan mahmaahda kooban waxay odhanaysaa wax rag kaa galay raka kaa galay wax rag kaa galay raka kaa galay waxaan ka soo bilaabayaa dhinaca midigta waxa fadhida walaashii isaga maxay kula tahay mahmaahdaas macnaheedu inuu noqonayo ama loo adeegsado guulad horta maadsan tahay marka hore mahmaah horta dhanka mahmaahida iskuma fiicin aniga laakiin haddii aad isku dayto way adagtahay su-aashaas wax rag kaa galay raka kaa galay okay waad mahadsan tahay waxaan leeyahay way adag tahay okay waad ka faa'iidaysan doontaa insha Allah markaan صاحبي لا يقولون ورت أنا دنك مع ما تحفظ مي هي قصته واحد كاجل أدي رجل ده كل واحد صباح صباح واحد كاجل يعني واحد يعني وقف نهر ودنك أو يعني كي توكلون هو بتاع لكن أنا يعني تجا كاجل وحاسس كلهم أنا سولين أخونا سلاح صاحبي خلاص قولي له بعد ما أصدقائي دان سوديو ورت مع مالاس waxaan ka galay waxaan ka galay raka horta ayriga rako hadaan wax yar TV waxa way horta geedka maaragtay markuu labadaas oo kala baxaan meesha u dhaxaysa raka dhaha meeshaas waxa ka galnaa aad baa horta inaan kala soo baxay marka anaga maamaaduna wuxuu kulay mudan yahay ama cabiraya saan filaayo nin wax hadii uu ka galaan soo qaato adag tahay ama ninkaas laga galay saas ayuu tahay waxa dhiisho ama geedku madam geedka kaas adag tahay laga soo saaro wixii inay adag tahay sida geedka uu adag tahay inuu ninka ragga wixii ka galay ay adag tahay macnaha waa sida aan filayo macnaha inuu noqonayo wixii dambe kale aan si faa'iidin doon okay waad mahadsan tahay saaxiibkii khadar aad baad u soo dhaweysay weli waxaan dhihi karaa boqolkiiba 90 mahmaahda waad sheegtay wax rag ka galay macnaheedu waxa weeyaan macnaha shayga ragga la dhahdaa waa shay dhib badan waa shay adag weeyaan marka shayga rag kaaga jira ama ay ka hayaan oo wax meel adag kaaga lama rabo rakaduna sidoo saaxiibkay sheegay
meelasha sare ayaa la kala dhahdaa geedka meeshiisa sare ee laamo ku kala qaybsamaan guriga meelo raka oo loo sameeya jirta guryaha laftooda hidaha iyo dhaqanka soomaaliga goobo raka ah oo alaabta la saarto si carruurta looga fogeeyo ama badaadka iyo waxyaabaha looga ilaaliyo ayaa jirta marka mahmaahdaas oo kale waxaa la adeegsadaa xilliga nin raga ama adeyn u yeelato amaba xaaja kaa gasho amaba ay hawli kaa gashay ay hawshaasi kaaga soo dhamaan weydo ee ay kugu adkaata waxa dhahdaa waxna kaa galay kaa galay marka maanta kadib haddii barnaamij ragis ayaad aragto waa inaad tidhahdaa wax rag kaa galay raka kaa galay waayo waqtiga oo kooban awgeed maamahda labaad inu gudbina maamahda labaad waxay noqonaysaa nin heshiisii la qaatay nin heshiisii la qashay kandahe nin heshiisii la qashay feer ogol oo fallag ogol oo faramanaan